maanta waxaanu u fadhiyaa waa dhagaxdigii weeye ground breaking-kii airportka Boosaaso su'aalkay sheegay hadal maanta ma aha waa reality weeye waa dhabti weeye waxaan rajaynayaa marka ballanqaadkeennii ahaa waxaan noo maraynaya waa in maqasheen in 10 bilood gudahood maxaanu helaynaynaa hal airport 18 bilood gudahood maxaan heli doonaa 2 airport 2 sano gudahood maxaan heli doonaa 3 airport waa bilaabatay waa inoo bilaabatay waa rajaynaya in markuu dhamaado garowe waxaa la dhagax dhigay tenderka xamala inuu la bixin doono bisha February kabacdina kuwa badan oo dambe ayaa loo xigi doona insha Allah waxaan rajaynayaa hawshaasi inay aan ka raysano sida Abu Bakar sheegay Djibouti ka tagno in diyaarad marwaxad leh oo aan ku dhimanayso ku fidgalanaysa inaanu soo raacno dambe inaanu ka raysan doono waa arkay in maanta qofka Djibouti ka soo duulay Dubai inay ku qaadato 4 saac gudahood inuu ku yimaado Boosaaso iyo ka badanba oo ay dhacdo marka qaarkood in qofkaasi ay boorsadii ka soo dhunto in uu marka qaarkood leeyahay diyaarad lama helayo suuqa Orberi wanaag joogtan magaalo Hebla waxaa soo dhan in Puntland ka raysato dadka Puntlandna horumarka ay istaahilaan dawladooda inay helaan ayaa rajaynaa insha Allah waxaan rabaa in sheego sidoo kale aadaab nahur aqoon abrataan muuse yaale mashaariic kale ku wada shaqeynayna waxa kamid ah inaan helo diyaarad anagu aan leenahay ee loo yimaado insha Allah maxay tahay marka muhiimadda ay noo leedahay kaabayaasha dhaqaale ee dalku wadanka haddii uu salahayn kaabayaal dhaqaale horumarkaan u baahannahay ma helayn marka waa inaanu garanaa bilowga horumarku inuu yahay kaabayaasha dhaqaalaha airportooyinka dekadaha jireedka haddii marka aan wax badan ka bedelo airportadana dhaqaajino ilaahay idinkii dekadihiina aanu isku dayno inaan wax badan ka qabanno waan rajaynaynaa in uu horeyn Boosaaso ay dekadeeda la ballaariyo kabacdina kuwa badan oo laaskoray ganacsi ay kamid yihiin sidoo kale iyana aanu qorsheeda aan ku jirno kuna dadaalayno ilaahay idinkii in wax badan ka soo baxaan waxaan rajaynaynaa marka in uu noo soo baxo network wax la yiraahdo network waxa weeye in airportkii dekadii jidkii isku xiran yihiin hormarka taas ayaa keenaysa qofku markuu beertiisa ka soo gurto dalagiisa inuu helo jidku soo qaadi lahaa inuu heli lahaa markaa diyaaradii qaadi lahayd kaargooy qaadi lahaa alaabtiisa ama dekadu ka dhoofsan lahaa marka waxa isku wada xiran weeye haddii mid la helo mid kale waa in la helo diirayda marka networkaasi wax badan ayuu ku bedelaya fiiri waxa jirta concept dhaqaale oo la yiraahdo bis iyada imaan doonto inaha markaa dhisto way imaanaysaa waxaan ka wadaa Boosaaso xaq qiyaastaan dekada ay jidka ka hor say ahaan jirtay iyo maanta sida ay tahay marka infrastructure haysato ganacsigu imaanaya horumarku waa imaanaya isbedelkuna waa imaanaya Boosaaso kama duwana qandara hakiga duwanta waxa weeye waa infrastructure marka bidada kale maxay muhiim noogu tahay inaanu helo
kaabayaal dhaqaale oo dawladdu rumul ka tahay waxa la yiraahdo public goods-ka sababtu waxa weeye horumarka aan rabno iyo isbeddelka ka rabna Puntland dawladdu dhaqaale ay ku keento ma haysato mushaarkii bay la ciiraysaa maxaan u baahanaa marka waxaan u baahanahay maalgelin dawladda u baahanahay waxaan u baahanahay FDI foreign direct investment u baahanahay qofna ku imaan mayo haddii aan infrastructure lahayn waa fikrad dhaqaale ah oo oranaysa markaad dhisto infrastructure-kii dawladda looga baahnaa waxaa la yidhahdaa public goods crowds in private investment macnaa waxaa weeye markaad taa dhisto ayaa kii kalena imaanaya sababtoo ah qofka ku imaanaya marka wuxuu eegayaa badeecadiisa maxay ka dhoofsanaya see waddanka ku imaanaya jidkee buu maraya waxaan u baahanahay marka dadkeenna ganacsatada ah inaan opportunities u abuurno ay waddan ku maalgashadaan qurbajoogteenna aan ku keenno walaalena dariska ay maalgashadaan kambaniye caalami aan ku keenno aan kaga faa'iidaysanayno khayraadkeenna say u soo saari lahaayeen kalluunkeennii xoolaheennii macdinteennii shidaalkeenni waxalba laakiin waxaa ka horreeya in la helo kaabayaashii dhaqaalaha oo arrintaas loo suurtagelin lahaa macdan ma maalgashan karno haddaana jir haysan kalluun ma maalgashan karno haddaana haysan dekadu ku dhoofi lahaa oo xoog leh oo weyn iyo airbortka ay ka duulayd aargoostadeena waxaan rabnaa in ay ka dhoofto airbortka boosaaso la saddex ka bacdina ay Dubai joogto ama Addis Ababa joogto ayaan rabnaa maxay marka kala imaanaya markii aad hesho maalgelintii dawladdu horumar bay keentaa maxay tahay horumarku tiknoolajiyadii baa ku imaanaysa tiknoolajiyadii kamani markuu yani maalgashiga dawladdu waxa ugu muhiimsan oo keenay waxa weeye tiknoolajiyada ku imaanaysa markii tiknoolajiyadii ku timaadana horumarkii waad gaartay horumarna waxa asal ka ah tiknoolajiyada weeye